Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah haddii la yiraahdo calaamadaha lagu arko xilliga uurka hooyada ama waxa loo yaqaano common pregnancy symptom ama calaamadaha ugu waaweyn ee lagu arko weliba xilliga hore ama like first week and second week week koowaad ilaa week labaad. Waxaa lagu arkaa waxa loo yaqaano kow in hooyada ay sameyso waxa loo yaqaano missed period oo hooyada caadadii inay weydo ama gabadhii inay caadadii weydo oo waqtiga ay imaanaysay inaysan iman. Waxaa kaloo lagu arkaa waxa loo yaqaano blisters aa lagu arkaa ama naas oo kale inay noqdaan waxa loo yaqaano inay barar ayaad ka dareentid ama nipple-ska ama qaybta ibta inay yacni very sensitive inay noqoto ama inay soo baxdo. Sidoo kale waxaa kordha waxa loo yaqaano increased body temperature-ka oo kale hooyada inuu high noqdo. Sidoo kale waxaa lagu arkaa most common morning sickness waxa loo yaqaan la dhaho hooyada subaxii yacni waxay dareemaysaa xanuun ama waxa loo yaqaano labo ama ma kici karto ama way kici kartaa laakiin xanuun bay dareemaysaa ama kor jajab ama caajis fara badan ama yacni inaysan habad aysan ka haynba hooyadu inay kacdo ama istaagto ama shaqo ay qabato. Sidoo kale waxaa lagu arkaa waxa loo yaqaano frequency urination kaadi badan oo soo laalaabata ayaa lagu arkaa. Frequency urination-ka infection-kuna wuu keeni karaa. Sidoo kale waxaa keeni kara waxa loo yaqaano dadka diabetes-ka qaba ama macaanta qaba. Sidoo kale waxaa lagu arkaa fatigue ama waxa loo yaqaano daal badan in lagu arko hooyada. Waata hadda sheegnay qof hooyadu waxay noqonaysaa yacni lack of appetite wax inay qabato hooyada ma rabto waayo waxay dareemaysaa daal fara badan. Maxaan ku dhahay lafo qarda burur ama lafo burbur haba si u taqaan caajis badan waxaasay dareemaysaa. Marka calaamado kale fara badanna way jiraan oo waxa loo yaqaano in lagu arko hooyada oo ay kasoo muuqdaan. Calaamadahaas waxaa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaano minor bleeding hooyada inay isku aragto dhiig yar oo yacni dhibco oo marmar imaanaya. Sidoo kale waxaa lagu arkaa waxa loo yaqaano bloating ama constipation waa lagu arkaa oo ah in lagu arko hooyada caloosha inay dibirsan tahay. Waxa loo yaqaano saxaradeedana inay adkaato oo constipation ama wax la calool istaag in lagu arko. Sidoo kale waxaa lagu arkaa waxa loo yaqaano oo yana mar walba lagu arkaa waxa loo yaqaano heartburn oo hooyada waxa lagu arkaa waxay ka oranaysaa mar walba waxaan rabaa in heartburn aan dareemaya ama laabta ay gubanaysa ama laab jeex baan dareemaya. Waxyaabahaasna waa lagu arkaa. Sidoo kale waxaa lagu arkaa waxa loo yaqaano caadadu inay kasoo dahdo kale waa soo sheegnay. Sidoo kale waxaa lagu arkaa oo yana aan meesha ka maqnayn headache ama madax xanuun ama waxa loo yaqaano inay dareento. Sidoo kale inay dareento waxa loo yaqaano lagu arko nausea ama waxyaabaha in lagu arko. Vomiting inay hooyada ay leedahay oo matag iyo waxyaabahaas in lagu arko. Sidoo kale in lagu arko change in taste cuntada markay cunayso kale in yacni dhadhanka inay dareento dhadhan kale oo cuntada ay dhibsato. Sidoo kale waxaa lagu arkaa calaamado badan oo caynkaas oo fara badan ayaa jira oo hooyada lagu arki karo oo kasoo muuqan kara. So marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.